gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Mudane Xuseen Satiin Faarax oo uu weheliyo maamulka dugsiga sare Ubay bin Kacab ayaa saaka waxay xadhiga ka jareen fasallo cusub oo kombiyuutar lab ah oo lagu soo kordhiyay dugsiga sare Ubay bin Kacab si ardayda loo baro xiisado la xiriira barashada culumta kombiyuutarka iyo culumta tiknoolajiyadda casriga ah ayna ula jaan qaadaan dunida casriga ah. waxa kale oo ay soo kordhiyeen shaashado ardaydu waxay ku baran doonaan culumta sayniska taasi oo dugsiga sare Ubay bin Kacab uga gol leeyahay tayeynta iyo dhiirigelinta ardayda dugsiga sare Ubay bin Kacab. maamulaha dugsiga sare Ubay bin Kacab ayaa isagu faahfaahin ka bixiyay fasalladan cusub ee kombiyuutarka. maanta Ilaahay fadliga ah waxa inala joogo iskuulkii sare Ubay bin Kacab gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal Xuseen Satiin Faarax oo aan doonayno inuu noo furo laabkan kombiyuutarka aan ku soo kordhinay iskuulka. waxaad ogtihiin waxbarashadii runtii theory ma wax u baahan tahay practical bay u baahan tahay khaasatan sayniskii imtixaanaadkii waad ogtihiinoo waxa ku imanaya intaasoo sawir ardayga haduuna aragba ee maxaad theory ku soo qaato hadhow buuxbuuxin kara imtixaankii dhawaada waxa ku jira wadnaha ku jiray oo falaadhinta lagu sameeyay buuxbuuxi leeyahay haddaan soo aragba dhibaato far badan bay ku noqonaysaa. waxa kale oo muhiim ah tiknoolajiyadii iyo kombiyuutaradu waxay noqdeen sida qalinka ay noqdeen ilaa Japan iyadoo ay ku sheegtay maxay 2000 bay dhahan cidaan kombiyuutar wax ku qorin waa ummi bay yiraahdeen jaamacadii ardaydu markay galaan si fudud kaliya qoran karayaan saadarteed insha Allah taala inaan form ka soo bilowno form 2 form 3 saa wadno qolada form 4 ka insha Allah taala sanadka baxasa fursadoodu in badan waa waxay haystaan laakiin qolada hadda form ka soo bilaabo soo kale 4 sano markay qaataan insha Allah taala iyo kombiyuutar takhassus ku ah ay ka bixi doonaan. waxa kale oo ku soo kordhinay si maxay ardaydu wax badan u qaataan muraad LG-ga dusheen hadda taala oo macallimiinta amar ku siinay waxa liya wixii saynis practical ah maalin ay tiiro ku dhigaan maanta labaadna practical halka intay ku soo qaataan wax kasta wuxuu dhex yaala mar haddayna maanta inoo suura galeen waxyaabi kiimikadii wax lagu maxay sameeyay sayniska intii badnayd dhibaatooyin fara badan buu keenay saadarteed ma soo baxaan laakiin isagoo maxay ah soft ayaa meel kasta yaala cashar kasta oo la dhigayo in la soo qaado aqal ardayga arko bal waxaan la isku darayo marka waxaan rabnaa insha Allah taala in ardayda tayada wasaaradda waxbarashada qorshaheega cusub ee loo sameeyay xitaa gudiga waxbarashada degmada loo sameeyay saddex arrimood bay ahayd in tayada waxbarashada kor loo qaado oo ardayga Soomaaliland ka soo baxa uu noqdo arday la tartami kara ardayda caalamka marka dibadaha la isku baxo way ka mid dhaliyeen in badan hada wasaaradda waxbarashadu shayga labaadna waxa in la fidiyo waxbarashada iyo magaalada inuu ku koobnaan xitaa miyiga la gaarsiiyay insha Allah taala aad loo gaarsiiyay taasna aad buu dhacdo shay kale waxa maamul wanaag in la isku xidho wasaaradda waxbarashada iskuulkii waalidkii wixii dhan la isku xidho wixii oo dhan inagoo eegan oo maxaa ay jiri doono kormeero fara badan oo soconaya wasaaradda waxbarashada ka socda talab badan la bixin doono waxaan ugu talagalnay inaan practical-ka ku soo kordhino insha Allah taala. geesta kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal oo ka hadlaya xariga jarkan ayaa waxa uu ku bogaadiyay maamulka dugsiga sare Ubay bin Kacab dadaalka iyo tallaabooyinka ay ku tayeynayaan ardayda wax ka barata dugsigaasi. run ahaantii tartan baa lagu jiraa hadday tahay aqoonteena tartankaasina mar walba waxaan soo dhaweynayno marka koobaad aad baan ugu mahadnaqaynaa inaad soo kordhiseen barnaamijka aad ku duubteen in ay ardaydii ay practical ay u aragto waa mid muhiim ah soo dhaweynayno insha Allah waxaan ka rajaynaynaa intaynana ku koobnaanay inay si ballaarato dugsiyada kale waxaan ka rajaynaynaa in wax kasta oo lagu horumarinayo waxbarashadii inaynu sameeyno dhiirigelinta maanta sameeysan inuu garab taaganahay run ahaantiina waa wax badan buu ka tari karaa way caqabada badan ee haysata ardayda waxa kamid ah iyagoon aragba haddii chemistry tahay haddii xitaa physics tahay si triangles ay noqonayeen haddii biology tahay sidoo shaqeynay wadnihii iyo keliyihii inuu hadhow isagoo wax badan aan ka haysan in imtixaan ku yimaado hadhowna uu ku adkaado laakiin aad soo kordhiseen maalinna teeriga la qaato maalin practical la qaato aad baan u soo dhaweynaynaa. dhinaca kale maamulka dugsiga sare ee Ubay bin Kacab iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal waxay shahaadooyin iyo abaalmarino gudoonsiiyeen 24 arday oo iyagu kaalmaha hore ka galay imtixaankii sanad dugsiyeedka dugsigaasi sare ee Ubay bin Kacab waxaana maamulka dugsiga sare ee Ubay bin Kacab oo munaasabadaasi ka hadlay uu sheegay in sanad kasta ay waxbarasho bilaa lacag la'aan ay siiyaan ardayda kaalmaha hore ka gasha imtixaanaadka
imtixaanka dugsiga sare ee Ubaya binu Kacab. sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ayaa isaguna dadaalkaasi ku bogaadiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay. waxaan ka soo furnay lab computer iskuulka loogu talagalay halkan insha Allah taala waxaan ku iclaaminaynaa oo ku sheegaynaa 24 arday ee ugu sareeyay gudoomiye sanad dugsiyeedkii soo dhamaaday fasal kasta oo free ku dhiganaya sanad dugsiyeedka hadda bilaabmay haddii ay haystaana kaga bixi doono ardaygu 4 sanaba haddii cid faras ka soo daba qaadato oo ay ka badisana u ka soo gali doono laakiin sanad kasta loo ahayd dhaqanka intii dugsiga Ubaya uu jiray fasalka kasta ardayda ugu sareysa hadday 2 wanka galaan hadday 3 galaan hadday 4 galaan waxay noqonayaan free saadarteed fooradu way naga bixinay laakiin inta hadda joogta foowankuna hadday soo galayaan oo iyaga imtixaankooda marka la sheegay insha Allah yaa wixii jeesadan siin doonaa ardaydaasi 24 ka ah 12 waa gabdho 12 waa wiilal ardaydan freega sanadka noqonaysa waa maxaaday Nasteex Daahir Maxamed Xaddi oo ardayda ugu sareysa iskuulkana ah oo wali ka socota guud ahaan iskuulkana iyada ugu sareysa ardayda ku xigta waxa weeyaan Asma Umar Ibrahim Farid 3D 2D bay ka soo gudubtay 3D bay u gudubtay ardayda ku xigta waxa weeyaan Nimca Diiriye Xirsi Cilmi form 3D bay ka soo gudubtay form 4D bay u gudubtay Yaxya Mahdi Cawaale 2A buu ka soo gudbay 3D buu u gudbay Saamiya Ahmed Maxamed Cabdi waxay ka soo gudubtay 1E 2E bay u gudubtay Kawsar Ali Xuseen 3F bay ka soo gudubtay 4F bay u gudubtay run ahaantii maanta laba xafladood oo qiimo badan baan halkan ka dhacay ta koobaad maamulku wuxuu soo kordhiyay oo uu soo kordhiyay ardayda secondary-ga ahayd barnaamij teknolojiyada la jaan qaadaysa oo sayniskii practical aad ku helaysiin taata koobaad waxaan leeyahay hablayo inamada waa inaad si aad uga faa'iideysataan talabaad ee xaqan aan u joognaa waa dhiirigelinta ardaydu waxa lagu kala tagayaa waa aqoontaasna cidii shaqaysatay waan ugu hambalyeynaa in ay dheeraad ka hesho tartanku waa soconaya waa la isciriirsanayaa insha Allah intan waa iyana kooban in ardayda laga daayo fiigi laga qaadi jiray laakiin waxa ka muhiimsan oo sharaf ku ah ardayda inay noqdaan arday ka mudan ardayda kale barnaamij imika inta badan inamadii waa laga dheereeyay ilaa 3 kaalmood ugu horeeyay waxa haystay hablo hablaha ugu hambalyeynaya waxa la dadaalkiina badiya inta badan waxa dhici jirtay hablo markay secondary soo gaaraan inuu dadaalkoodu yaraado laakiin waxaan iga rajaynayaa in dadaalkiinu uu aad u labalaabmo ظننت أنا أني بذلك حزت قنا فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا